ninkan waxay ii soo ogaataan inuu Soomaali asal yahay iyo inuusan ahayn inta ii soo ogaada. Nabi Maxamedna isagoo taagan ayuu kaajay. Adaan baateen aan runta ku sheegay. Nabigu wuxuu yimid dad beer ama dad meel degan meeshay qashinka ku shubtaan oo ku daadiyaan uu soo istaagay. Waa jaahilna sidiisan. Aankiina waa qof sidan ka ah. Markaasuu isagoo taagan nabigu kaajay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. alla uu maseera waa ninka u dhibka badan way isagoo taagan buu kaajay. Markaasaan ka fogaaday buu ii soo dhaw buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. ilaahay wuu maseera waxa loo cadaaba munaafiqnimo loo cadaaba nin taagnida ku kaajayo ku kaleedhinay Soomaalidu maxay u taqaan gaal bay u taqaan ninkan waa ninka u dhibka badan way ilaahay wuu maseera marka aaqad waxa loo cadaaba munaafiqnimo loo cadaaba tawbe kunta kinte ya allah nabi maxamedna kama fi sahihayn bukhari iyo muslim ugu yaala nabi maxamedna isagoo taagan ayuu kaajay tawbe kunta kinte ya allah waa isku dir munaafiqnimo ugu jira ee daba dhilif macna inuu hawi dawad u leefo inuu daro dawad u leefo oo ilaahay ka cabso ilaahay wuu maseera ilaahay ka cabso maanta Soomaaliya waxaad ka tahay ku dishaad ka tahay ya allah laakiin meel la ma haysatid daba dhilafaad ilaahay wuu maseera war adiga noloshaada ma kordhisnimo ku dhamaysanaysaa ya allah waa arin aad iyo aad u yaab badan way qalkana faafi sheertana dhiiga kan taadiya feer la dhac wayna ka